إن شاء الله تعالى برسم حدو واقع بري ويلكي سجود أيان جينا يعني دعودي سنة هالكاس أيه كدعي دونتا كنيجس ما يمانا يا مقالة الزجوج أيوة حيمان دونا مرقاتية ذو قدام بيجن إنه سنجلين إياك أيانا عدين دونا هذه إن شاء الله تعالى وحنا وحول بس هذا سينا دو وقات دكتور أرتوك sababtay u xireen maxay taana dadkaas laakiin bari ay ka jawaabi doonaan hawshoodu way ku guuleysteen oo diktoorka way naga xireen laakiin waaga hadduu bari wax ballan ah inaan diktoorka dib ula soo laabano horma uu soo galaa walaalayaal soo gal walaal waxaan jeclaysaa si nabada inaan lala sheekaysto laakiin dadkii xumaa ayaaba naqasaba dhib male walaal soo dhawow halkaana fariiso walaal inaad halkan imaado way fiicneed amiir bahaduur tabartiisa ayaa tustay hawsha intaanoo keliya kuma eeko adeer haddii uu maqanya booskiisa aniga ayaa taagan dadka nitina waxba nagama qaadi karaan kuley haddii ay wax fahmi waayaan seefta ayaa wax walba ku fahansiiyeen oo idinkana waxbaa ka baqinaa raggan ujeeddadooda maxay tahayna aabba 10 sano manguulis ayuu dagaal kula jiray laakiin waxba nooga daran kuwaan annaga nala joogo kuwaanaaba weerar culus annaga nagu haaya saastay adeer dagaal adag ayuuba ku jiraa markay caddaato gundus inuusan wax dembiya lahayn gacmo ayaa isqabsanaynaa waxaan u dagaalamaynaa sida geesaashii reerkaay oo kale waa ayo daraagoskan aad ka sheekaynayso adiga saaqoon dheeraada muu leedahay ii sheeg aabbaha iyo ciidankaygana muxuu ka doonayay hal midna haddii aan kuu sheego ibligaad ujeeddada ugu weyn amiir bahadiin leeyahay waxa uu rabaa dembi aanan lahayn inuu dusha naga saaray kadibna magaalada suguud uu gacanta ku dhigo si uu isaga u maamulo annagana arrintaas ayaan ka soo horjeednaa mana dhacayso innagoo nool in suguud gacanta lagu dhigo saglos gabadhiisa idfokiya iyo sakfuur gabadhiisa irana ayaa arrinkan wax ka og barin gabdhaas ayaa markhaati ka noqon doona waa sida la sheegay laakiin beri haddii loo baahan yahay inay iiraan imaado magaalada zabuud oo markhaati ay noqoto sooma dhiban inay ka soo badbaado lays inuu dilaa laga yaabaa haddaysan imaan maxaad ka tiri way imaanaysaa aniga ayaa ciidamadeed u diray ayaga ayaana keeni doona insha allah markii ay gabadhaas timaadana waxaad ogaataa dembigan beenta wiilkayga aad dusha ka saartayna waa uu caddaan doonaa insha allah taa baan rajaynaya haddii aadan ii cag wareejino wax kale ila imaan insha allahu tacaala berri wiilkayga magaalada zuguud ayaanu wadaa maxkamaddana waa la saari doonaa waana ay caddaan doontaa inuu wiilkayga gacanku dhiigle yahay iyo inuusan ahayn gacanku dhiiglihii adiga aabbahaa dilay adiga ayaa waxaad u door leedahay inaad wiilkayga badbaadiso iyo inaad adiga dilkiisa sabab u noqoto insha allah wax walba berri markii cadaaladda la horgeeya ayay soo bixi doonaan haddii rabbi raalli ka noqdo maara aniga lees aad ayaa uga shakisanahay sababtoo waxaan u marayaa dilka aabbahay inuu ka dambeeyo halkanna wuxuu igu xiray waxay tahay aabbahay dilkiisa cidda ka dambaysay inaan ogaan waxay ahaataba aniga waa inaan halkan ka tagaa waayo beri doole gundus ayaa maxkamad la saaraya anigana markhaatiga ayaan ahay ma raba ninkaas dheedheelinoo iga dhinta aad ayaan u jeclahay hadda ayaan fikrad helay waddada keliya halkaa uga bixi kara waxay tahay dharkaaga inaad xirto